isballaarinta iyo biyo raadinta Ethiopia waxay ka noqotay mashruuc qowmiya yani waxyaabaha kiciya wadaniyadeeda iyo mataqaana mustaqbalkeeda hada taariikhda Ethiopia qofku markuu akhriyayo ama daraasaynayo marxaladii dambe oo dhan inay soo balaaranaysay dhinac walba u balaaranaysay mesela xagga Suudaan u balaaranaysay xagga xeebta badda cas u balaaranaysay xagga badweynta Hindiya u soo balaaranaysay dawladda Ethiopia sideedaba abuurankeeda hore ay dawladnimo noqotay waxay dawlad reer Boreeda ama dadka Amxaarada iyo Tigreega iyo xabashida la isku yiraahdo Highlandka dega ay ahayd marka dad mantiqada geeska Afrika inteeda badan ka dhaqan duwan kana diin duwan kana af duwan ayaa dawladda Ethiopia abuuray iskana lahaa dad mataqaana mesela geeska Afrika waxa badan ku shatig waxa badan maxaan ku yiraahdaa xaamiina luqadahooda mataqaana ku shatig yihiin waxa badan moogtahay dad muslimiin ah tira ahaan iyo maxaan ku yiraahdaa halka mataqaana dawladda Ethiopia dadka yani dhalay abuuray ay waday ay yihiin dad maxaan ku yiraahdaa luqadahooda luqada Samitiga ay yihiin ama Saamiina Kristan ah reer Bureed ah marka aan xeebahan iyo yani waqooyi hada tira badda cas iyo hada bari tiraahdo badweynta Hindiya aan shaqo kulahayn una dhaweyno masaafad fog ay u dhaxayso marka taasi waa dhalinaysa in Ethiopia mashruuciigu warto ku abuurmaba dhul balaarsi hada taariikhda Ethiopia qofku markuu akhriyayo ama daraasaynayo marxaladii dambe oo dhan inay soo balaaranaysay dhinac walba u balaaranaysay mesela xagga Suudaan u balaaranaysay xagga xeebta badda cas u balaaranaysay xagga badweynta Hindiya u soo balaaranaysay bulshooyin iyo shucuub kala duwan ay ku balaaranaysay marka horta mashruuca isballaarinta Ethiopia mashruuc cusub ma aha waa mashruuc taariikhda dawladdaasi iyo sida ay u jirtay iyo damaceega laf dhabarku ah taas waa mid masalada labaad ii sheeg biyaha Ethiopia mahmaha ma odhaacana waxa jirta moogtahay siyaasadda Ethiopia waxay ku dhisantahay biyo halkayga xigan oo looga jeedo maadaama aan soo sheegnay dadkaas inaan xeeb shaqeeyo shaqoltoona ku lahayn dawlad weyn ay dhistaan yani dabcan taariikhda dawladdan oo laga hadli karaa oo taageerada ay u heleen in dawlad dhistaan iyo wax noocaas laakiin waa mas'ale kale ay ku soo faafeen shucuub ay Oromada iyo Soomaalida iyo Canfarta ay ka mid yihiin dhulkooda yani xoog ay ku qabsadeen iyo qori caaradii ama marka qaar heshiisyo iyo islaafsi gumaysiga sidaas way tahay haddana marnaba uma suurtagelin Ethiopia in xeebta xukunto xeebta badda cas iyo xeebta badweynta Hindiya labada midna uma suurtagelin xukunto ama soo gaadho ama ay ka taliso baahida Ethiopia u qabtay inay bad heshaan dabcan waa baahi jirta oo ganacsiga iyo dhoofinta iyo soo dejinta la xiriidha marka taariikhda hore sooyaalka isballaarinta iyo biyo raadinta Ethiopia waxay ka noqotay mashruuc qowmiya yani waxyaabaha kiciya wadaniyadeeda iyo mataqaana mustaqbalkeeda ama siyaasadda uga fikirayaan doorashooyinka saameeyo axsaabta haddii mesela doorashooyin la galo oo la tartamo qadiyadaha miiska soo fuula ay ka mid tahay istiraatiijiyadaha ay ku fikirayso dawlad ahaan markay wax qorsheysanayso ay haddii ay qorsheysanayso inay tahay dal yani bilaab yani badda ka caagan oo mataqaana aan biyo lahayn iyo haddii rabto inay biyo yeelataba waa masalo yani meel weyn kaga jirta qaabka Ethiopia ay dawladnimada uga fikirtay istiraatiijiyada ay rabto inay geeskan ugu noolaato taariikh fogna waa soo leeyahay damacaasi biyo raadinta Ethiopia waxaan ognahay Ethiopia marka loo eego deegaan ahaan dad ahaan waxaa bulshada ka nahay marka laga soo tago keliga shaqo Sayla maxaan ka naqaanaa sidoo kale maxay Ethiopia halkaas u baritaa aad iyo aad horta si guud meelaha ay Ethiopia carabka ku dhafato markasta oo ay bad raadinayso waxa kooka Sayla ما هو إن تهاي ممكن يعني حدود جغرافية أم حدود دولة الصومالية إثيوبيا وده حيسا أم إثيوبيا الصومالية وده حيسا بدرتها لكن ماشى برو البعيان كوسارة إثيوبيا ملها مركب جوهر يسابا مركب بدك فكران إثيوبيا كويكسوا فكران سيلع بكوكا عصب بكو كتير تري كتالا تاريخ بين الله هاي مسألة ذا إثيوبيا نسيلع أيضا محسن تهاي أما عصب أيضا محسن تهاي مركب قار حتى جيبوتي أيضا محسن تهاي تاريخ راسي مثلا إثيوبيا كهر جميسته إنت نقول يمن إثيوبيا طل بدله ما أهين تديوغن كله حيبها تكين الصومالي ويقولوا بلارن تاعي
ayaa xeebaha wax ka soo dejin jiray oo dadka gudaha ku jira wax ka gedi jiray xilligii gumaystuhu yimiday Ethiopia waxay kamid ahayd gumaystayaashii u tartamayay xeebaha iyo dhulka Soomaalida yani mesela Ingiriiska Talyaaniga Faransiiska 1880 iyo wixii ka dambeeyay maadaama 1885 1880 cagsiga Ethiopia xaqani ka soo fiirisay gudaha oo 1880 laftirkiisa ay heer qabsanaysaa dhulkan ku soo fidaysaa marka tartankaas horta qayb ka ahayd marka waxay noqotay tartan u dhaxeeya Ingiriis Faransiis Talyaani iyo Ethiopian oo mantiqada juqraafi mataqaana ku noolnahay lagu tartamayo taas waxay keentay in Ethiopia qayb qabsato dhul hesho Ingiriisku dhul qabsado yani taariikh badan oo u baahnay inaan ku celino laakiin dhowr jeer oo dhulka isbeddelkiisa iyo xuduudiisa isbedeshay waxa la xiriiray mas'ala aad u la xiriirda badaha tusaale ahaan dhowr jeer Ethiopia waxay wada hadal la gashay British Somaliland xilligii gumaysiga si ay u hesho xeeb oo qayb looga siiyo xeebta baddaas qayb looga siiyo qaybtaas oo mar walbana qorshaha soo fuuleysay maxaan ku raadayay Saylac soo fuuleysay ha marka kuntu yani sodomiyadii dhowr 90kii qarnigii tagay sodomiyadii qarnigii tagay iyo kontomiyadii qarnigii tagay wada hadal la Saylac la xiriira ayaa jiray ugu dambeyn markii Hawd Reserve Area Ingiriisku ku wareejiyay Ethiopia ku wareejiyay dhowr 40kii ay Soomaalidu ogaatay mawjada kacdoonka ay kicisay wada hadalada dambe Ingiriiska iyo Ethiopia ka dhaxmaray baddaas qayb looga siiyo qaybtaas oo mar walbana qorshaha soo fuuleysay maxaan ku raadayay Saylac soo fuuleysay ha marka kuntu yani sodomiyadii dhowr 90kii qarnigii tagay sodomiyadii qarnigii tagay iyo kontomiyadii qarnigii tagay wada hadal la Saylac la xiriira ayaa jiray ugu dambeyn markii Hawd Reserve Area Ingiriisku ku wareejiyay Ethiopia ku wareejiyay dhowr 40kii ay Soomaalidu ogaatay mawjada kacdoonka ay kicisay wada hadalada dambe Ingiriiska iyo Ethiopia ka dhaxmaray waxa jiray dhowr 50kii dhacaya oo laga wada hadlayo inay Hawd Reserve Area British Somaliland lagu soo celiyo waxa ay Ethiopia dalbanayso ay ku bedelanaysaa waxa weeyaan Saylac nasiya anagu Hawd Reserve Area waa soo celinayna Saylac oo marka 100 kilomitir oo ballaca من حد إثيوبيا هذا إلى يبدأ أو 60 كيلومتر بجيبيسو حد كلا بدأ هالكودو 60 كيلومتر بلع أنا 100 كيلومتر لو أنت عليك نسيه أنا قلنا أنت اللي يكون بدلنا قلت مثلا سياد أي وجرتها هذا الهاي أنت أي بدأ هذا الهايسو إثيوبيا وهوسو دعاء أما قدامي مركي أي لو ريكتي محنكو إريتريا أي لو ريكتي أو طلياني بكوريكي يعني قرب ذي مدوبة سيدي منطقة كمل جار كمركي ضمنا كمل جار نمدي بين تسكر عفتي عندك على لوكيا تري إثيوبيا مركز هالشيء مسوع يو شيء عصب أي هالشيء استعمالي شيء دجال بكرة عي هالكم إريتريان كوكا لأن الكودا أي حرستان مرة بعد مركز حصون ولا ضد من إثيوبيا لحري لي سيلع يبضع حباك على جيسك مركز إريتريا أي كجوسات من مركز إريتريا كجوسات إلا ما أنت Somaliland waxa madax ka noqday 5 madaxweyne 5 afar kamida wada hadallo dekada la xiriira gaar ahaan dekada Saylac la xiriira oo ama la shaaciyay ama la shaacin way la gashay Ethiopia Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Dahir Yaala Kaahin Axmed Maxamed Silaayo iyo Muuse Biixi Cabdi intaba markasta oo ay Ethiopia qaabisho ama ay isqaabilaan ajendaha xeebaha ayaa saarnaa in dhul laga siiyo in ganacsi laga siiyo in ay maalgashi samayso in loo fududeeyo marba si loo dhigo mas'aladan in Ethiopia ay bad u baahan tahay xoog iyo xeeladba ajendaha Ethiopia mar walba ku jirtay laakiin inta badan waxa laga hadlayay madaxda Soomaaliyeed waxa u badnayd in tashiilaad iyo ganacsi iyo mataqaana fursado Ethiopia looga abuuro xeebta maxaa diiday marka hadiiba ay sidaas u doonayso in